بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن دمانتين به صاحبada يوم meel walbo aad dunida ka joogtaan halkani waa Magol Media barnaamijka di alla ka dhigo dunida iyo haatan qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Mareykanka iyo Iran colaad iyo nabad midkay u ololeynayaan waa maxay waxaan colaadna ahayn nabadna ahayn ee ka soconaya gobolka bariga dhexe barnaamijka ku daawan doontaan hadii alla ka dhigo isu tagi Imaaraadka Carabta oo wajahaya burbur ay adag tahay dawladdaas in ay ka soo kabato sababta maxay tahay duqeymihii ugu dambeeyay ee Imaaraadka lagu qaaday iyo khasaarihii ka dhashayna barnaamijka ayaan idin kula wadaagi doonaa hadii alla ka dhigo suurtagal ma tahay in ay hadba ama durbaba ay bilaabeen madaxda isu tagi Imaaraadka Carabta in ay diyaarsadaan wadamada galbeedka mid kamid ah dalalkii ay u qixi lahaayeen ama dalalka galbeedka ama Mareykanka guud ahaan inay sii samaysanayaan goobaha ay u sii qixi lahaayeen maxaa yeelay xaaladda Imaaraadka Carabta waxay maraysaa meel qaala qowsayni oo adna la oran karo barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonaa hadii alla ka dhigo Mareykanka oo diiday mid kamid ah qodobadii uu horay u ogolaaday keenayna in la joojiyo 40 maalin oo dagaal la isku jilba jabsaday kadib dawladda wadanka Mareykanka iyo Iran iyo xulafada isku dhinaca waxa kale qodobka kamid ah ama qodobada kamid ah barnaamijka ku daawan doontaan hadii alla ka dhigo weerar toos ah oo goordhow dhex maray ciidanka ilaalada kacaanka wadanka Iran iyo maraakiibta dagaalka ee dawladda wadanka Mareykanka xagee lagu dagaalamay maxaa dagaalka keenay barnaamijka ayad ku daawan doontaan hadii alla ka dhigo qodobada kale aad barnaamijka ku daawan doontaan waxa kamid ah shacabka Mareykanka oo mar kale ay u dhigayaan xoogaga Israa'iiliyiinta iyo rag u ololaya ee gudaha Mareykanka ku nool mid kamid ah sheekooyinkii ugu cajiibsanaa in mar walba Mareykanka laga helo mas'uuliyiin Israa'iil taabacsan wuxuu yahay qorshaha halista ah ee socda ee waliba laba wajiilaynta ah barnaamijka ayad ku daawan doontaan hadii alla ka dhigo madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo mar kale wadnaha farta ku haya kana baqaya afgambi u dhigma ama ka daran kii dhacay 2016 maxaan soconaya barnaamijka ayad ku daawan doontaan hadii alla ka dhigo qodobadaas iyo qodobo kale oo xasaasi ah iyo wixii dunida ku soo kordha inta aanu barnaamijka wadno hadii alla ka dhigo ayad barnaamijka ku daawan doontaan aad iyo aad u mahadsantiina fadlan kanaalka subscribe siya oo la wadaaga saaxiibadiina muuqaalka aragtidiina ka dhiibta wehelka barnaamijka u noqdo hadii aad kamid tahay saaxiibadayada hore aad baad u mahadsantahay mid cusub hadaa tahay nagu soo biir mar walba wehelka ka dhigo Magol Media si aad ula socoto waxa ka dhacaya guud ahaan caalamka aragtidaadana ka dhiibo saaxiibada barnaamijka ka aragta dhiibta si fiican ayaan ula soconaa mahad gaarana waan uga celinaa soo dhawaad waxaag marka ugu horeysa Mareykanka iyo Israa'iil oo isku dhinaca iyo dawladda wadanka Iran gobolka bariga dhexe xaalad kale ayay geliyeen dabcan ciladan waxa la wariyay inaana Iiraaniyiintu ahayn Iiraaniyiintu waxa la wariyay ilaa iyo hadda marka telefishinada caalamiga ah daawato wararka hatta warbaahinta reer galbeedka ayaa qiraya dawladda wadanka Iran inay sameysay dulqaad cajiib ah oo dawlad sameysay ay adag tahay dulqaadkaasi maxaa kamid ah Iran inta wax lagu heshiiyay ayaa heshiiska looga baxay maxaa kamid ah waxa ku jirtay xabad joojin ka dhaqan gasha wadanka Lebanon ayaa ku jirtay isla markii sida loo saxiixay waa Donald Trump iyo Netanyahu ay diideen ay muddo Lebanon xabad joojintii ay ilaa imaantada inuu joogno maalin qurxabad kama joogsan marka laga reebo dhowr maalmood oo kooban oo aan Beirut la duqeynaynin laakiin koonfurta maalin xabad laga ma joojin marka taasi waa qodob oo Iran haddana way ku dul qaadatay waxay tiri dib male waa kulay rag meesha aan ku ogahayna ugama baqayo rag inay kuwaas xogaga shuftada ah ee duulaanka ah rag inay dardaraan uga baqay ma aha waa si la gaari doona bal wal hadalka noo wada iyadoo arintii jirto oo ay xaaladii sida tahay ayaa haddana dawladda wadanka Mareykanka waxay ku dartay qodob ah in dawladda wadanka Iran dekedeeda oo dhan lu cunug qabateeyo dabcan sida marka idin leeyahayna maraakiibta Mareykanka xeebaha Iran iska daayay meel 100 kilomitir meel 1500 oo kilomitir u jirto ayay joogaan marka hadda dawladda wadanka Mareykanka maadaama ay dawlad cuduma hadda ay tahay oo dawlad intaas xoog leh oo mukhaabaraadkeeda loo maxay ah way ogaan kartaa maraakiibta Iran ku soo socotay kuwa kale intaba way ogaan kartaa marka
arrinta haddana Iiraan way ku dul qaadatay sidii oo ay tahay ba haddana ogolaatay in wada hadal la sameeyo bal wada hadallada la sii wado si marka dagaalka marka loo joojiyo Iiraan marka ujeedada ay ka leedahay maxay tahay laba ujeedo ayay ka leedahay waan u imaan doonaa wararkii ugu dambeeyay dhacay laakiin bal horta fahma waxa socda raba inaan bal horta xogaa inuu isla fahano dad isfahmay baa isla jaan qaadeen Iiraan laba shay bay kaga gol leedahay kow hadda dagaalka hadda hadii sidan ku joogsado Iiraan Google bay fadhidaa waxay noqonaysaa dawladii ugu horeysay oo caalamul islaami Mareykanka intuu weeraro dabadeedna ilaa Mareykanku baa guul gaari jiray Afghanistan iyo Iraq ya sax 20 sano kadib si fool xun oo jaba waa kaga soo bixi jiray laakiin dagaalka foolka fool ah oo Mareykanka iyo Israa'iil iyo xulafada Carbeed ee caloosha u shaqaystayaasha ah inta isku kaashadeen inta wadan la isugu la tigay haddana laga soo waabtay ee bal isagu 80% guuleystay Iiraan baa koow ah marka arintaas marka Iiraan waxay rabtaa sida inay diiwaanka u gasho oo xabad joojin saan ku dhacdo sida lagu heshiiyay rabta maxaa yeelay Iiraan arintaas guul bay u tahay qodobka kale oo Iiraan ku qasbay waxay tahay Iiraan inay si diyaar garowdo dabcan nidaamyada difaaca qaar ba Ruushka laga keenayay qaar ba China laga keenayay ciidan loo tababaray baa jirtay saaxiibadeeda meel badan ba taageero ugu imaanaysa dawladda wadanka Iiraan waxaas oo dhan ba soconayay marka iyaduna inay waxeeda isku duwato oo Shiinaha ay alaab ka soo qaadato oo Ruushka ka soo qaadato oo iyana Kuuriyada Waqooyiga haday wax ay ka heli karto meel yar oo kooban oo la duqeeyay haday jirto inay dib inta u hagaajiso hubka kala soo baxdo iyaduna faa'iido ugu jirtay marka laakiin wixii Mareykanka ka shaqeyn waayeen wuxuu ku leeyahay yaani wax la yamuutu fiya wala yaxya wax aan dhiman colaadna ma ogolo Mareykanka nabadna ma ogolo tusaale ahaan madaxweyne Donald Trump goor hadlay wuxuu yiri xabad joojintii kulaha Iiraan xoga un baanu taabanay laakiin wali xabad joojintii way shaqeynaysaa yaani Israa'iil xabad joojintii aan u hirgelin Libnaaniyiinta oo markii hore heshiiska ku jira oo Mareykanka diiday hadda oo dekadii wadanka Iiraan la si cuna qabataynayo Mareykanka oo weerar kala sii diyaarinayo laakiin waxa la leeyahay caalamka ma ogtahay caalamka Mareykanka keligii ma aha oo muddo dhanba eegaysa oo Iiraan waxay leedahay war aniga gacan hormus la yiraahdo marka ugu horeyso dhulkaygu kamid yahay bilaash baad ku mari jirteen hadda laakiin maadaama burbur dhaqaale uu gaaray markab kasto oo meesha maraya waa inuu bixiyaa calaafuusta garanaysa $2 waxay ka dhigan tahay marka maalin kasta 20 milyan ilaa 30 milyan oo dollar inay ka qaado si ay markaas dib u dhis u sameeyso mid kale hadda waa macruuf Suez kanaalada oo dhan caalamka lacag baa la qaadaa kan ibaaba almada un baa lacag la qaadin waana kuwa caalamka islaami ku yaala laakiin intooda badan caalamka waa la qaadaa marka Iiraaniyiintu marka iyagu waxay leeyihiin war meeshan horta waa dhulkeeni idin kala ma tashanayno markii horeba deeq aan anagu bixinay waan ugu talagalnay dunidu inay marto ayay ahayd laakiin hadii tii la isaga daba yimid free lagu ma marayeen marka Donald Trump markuu wuxuu qaadan laayahay Iiraan baa ka adkaatay 47 sano wadan cunaqabateen lagu hayay oo xaaladii sida ahayd in awoodii Mareykanka iyo ciidankii Mareykanka iyo Israa'iil iyo ragii qooqa badnaa in ay markaas gaaska ay ku dhuftaan waa niyad jab weeye Mareykanka gudihiisna dhibaato culus marka Donald Trump ka haysad ala inta xal markuu waxa la leeyahay Mareykanku dagaalkuna waa ku sii walwalaya oo inta badan mukhaabaraadka Mossad iyo waxaan ka hadlayaa CIA iyo FBI da Mareykanka iyo dadka xogogaalka ah iyo waxa oo dhan waa loo sheegay waxa la yiri dagaalka Iiraan ka daa hadii aad hadda ku laabato waxa imaan doonta mar aadan joojin karin ciidanka 200 ee kuna askari ee ku dhow ee dawladda wadanka Mareykanka bariga dhexe iyo meelahan ka joogana halis bad gelinaysa mana la soo bixi karnaa la yiri cid ugu badan aan isku hadlaynayno waa nimanka shuftada ah ee dhulka Falastiiniyiinta xoog ku haysta kuwaasna iska daa inay difaacaan iyaga xaalad darar wax la yiraahdo ku sugan iyaga naftoodii aan damaanad qaadi karin yaan isku hadlaynaa nimankan caloosha u shaqaystayaasha ah ee Carbeed inaga meesha ku hayna shacabka ma rabaan maalinkii la arko askar Ameerikaana oo jabtay wallahi waxa la arki doonaa bay tiri sidii wixii sagaashameeyada xamarka dhacay oo kaleeto askarteena oo saxaraha wadamada Carabta lagu jiijiiday marka wariyo sumcad waxaanu jiidinay nagada marka alay taalo halkaas maraysa marka aad bay u daran tahay waxaana la leeyahay colaad in nabad lama garanayo wasiirka arrimaha dibadda dawladda wadanka Iiraan Abbas Araghchi oo goor hadleen waxa uu sheegay waxay dawladda wadanka Mareykanka rabto cidina ma taqaan uu yiri colaadna ma rabto nabadna ma rabto marka inaguna waxaan colaadna ahayn ama nabad aan kuma jiri karno uu yiri marka ameenan colaadda galna oo aan kala calaf qaadna ameenan nabad qaadana marka wuxuu yiri mid kale waxay isku dayayaan buu yiri in Iiraan cadaabaan oo qabatayaan war anagu waxaasna ma saameynayaan Iiraan marka horeba bad waxba kama soo gali jireen ba inay shidaalka dhoofsada haddana shidaalkeeda Iiraan maalin kasta 2 milyan ibar bay dhoofisay ilaa 3 milyan oo fusto shidaal ayay dhoofisay marka
taasi waa taas dhinaca kale dowladda wadanka Shiinaha ayaa iyaduna goordhow fariin adag soo saartay waxaanay ku tiri waa in si degdeg ah loo furaa gacanka Hormuz laakiin Iiraan laga qaado cunaqabataynta waxay dowladda wadanka Mareykanka sameynayso iyo qorshaha la wadana waxay leedahay wax sii socon kara ma marka dowladda wadanka Ruushka iyo Shiinaha waxa la leeyahay Mareykanku aad bay uga adag yihiin maxaa yeelay yani uga indha adag yihiin maxaa yeelay waxaan sharci caalamiina ma waafaqsan xeer goboleedna ma waafaqsan yani waaba anaa xoog leh wixii sharci ma aha xeer ma aha waliba waxa kaaga daran jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa gaar ahaan golaha amniga hadda waxa la geenayaa qadaar Iiraan ka dhan ah oo ay Mareykanka iyo wadamada khaliijku ay soo diyaareen maxaa laga faa'iidayaa marka waxa laga ma faa'iidayo adigii baab wadan kale weeraraya xeerka caalamiga adiga ku qaban waayo qabanaya marka mid kale hadii maxaa laga qaylinaya Ruushka iyo China oo fadhiya midkood veto power saaray bes hadii kale labadooda wada saaray hadii kale waa isaga magaranaysa marka arintaasna hawshaas halkaas ay maraysaa waxa aan u nimaano isu tag Imaaraadka Carabta warbixin cajiib ah oo daabacay wargeyska la yiraahdo Middle East Eye ayana soo qaadan doona hadii Ilaahay idmo waxa la leeyahay isu tag Imaaraadka Carabta horta boqoradan waxay diyaarsanayaan meelihii ay degi lahaayeen haddaba waxay bilaabeen lacagtu inay sii dhacaan oo ay bangiyo Yurub iyo kuwa Asia ku yaal iyo kuwa kale waxa lagu leeyahay 960,000 oo yani hektar oo caalamka ayay beerteen lacag wax Allah wax wadanka lahaana Yurubta iyo Asia iyo China iyo Hindiya iyo hatta hal meel ma dhigin waxa lagu leeyahay waana qoyska labaad ee dunida ugu taajirsan way reer aalnahayaan hanti aabahood leeyahay ma ahaane xoolihii ummadda ay aruursadeen marka waxa la leeyahay Imaaraadka Carabta يعني حالة وحكوسه هي يعني غير الاستقرار نبتقليه مجرته ول مجره من ما مجرته مركه هرب إمارات إسكو صبير بيربي أهاي رونين كان قضية عيال كيسو أي مامورهم بكو حلالي هاي إن إيران إسكو تاجان أو إيران أي مالو ولا بالدقيم هذا الدقيم تتعذب أفرت نزدي سعكر وحلالي هاي ننكو ذا لقى سوق هذا ده كده فجرة ليران لقى سوق هذا أو إيران لقوا ويرراي ودكتور هذا تحرام بالله ويرراي مجالات الكونفورت ودن قدام بالله ويرراي لكن إيران وحصلوا واسك سعودية وأنا لا سعودي مركو ربع مركا إمارات عرفت مركو حلالي هاي sababta ay dagaalkan gadaal ugu taagayeen waxay tahay laba shay bay arkaan kow horta sharaf iyo karaamo waxa la yiraahdo waa u dhamaatay tan kalena Israa'iil ba gadaal ka wada tan saddexaad waxa la leeyahay hadda wadankan muwaadiniintu ku nool waaba ajnabi baba 80% ilaa 50% waa Hindi iyo Pakistan iyo Bangladesh waliba Hindi ba u badan Dubai iyo Abu Dhabi hadda aragtaan yani waxa ka shaqay waa ma hadda waa ogtihiin waxa la yiraahdaa Hindida Dubai ka shaqeysto noocaasa wadankiiba la wareegeen waxa kale ay wadanka soo galiyeen Israa'iiliyiin tira badan oo iyaguna magaca Imaaraadka Carabta jinsiir la siyaado iyaduna ciid ka badan wadanka soo galay marka wadankiiba duul kale ayay gacanta u galiyeen marka waxa la leeyahay waxa laga yaabaa in wadankaas maxaa yeelay Iiraan baa isku tataabanay hadeertaan Iiraan gantaaladeed iyo diyaaradaheeda droniska ah way ka dhibbadan yihiin kuwa Mareykanka iyo xulafadooda iyo 24 saac ee marka Iiraan weeraraya marka waxa la leeyahay waxa laga yaabaa inta Iiraan weerar culus waliba la qaado in dugkum laga dhigo ayay u badan tahay isu tag Imaaraadka Carabta waxa kale laga baqayaa iyaga laftirkooda isku caloolo ma aha oo iyagu laftirkooda meelaha qaar iska soo horjeedo oo aad isku naqdinaya oo leh sidan sax ma aha waliba Dubai iyo Abu Dhabi labadan magaalo aad ba iska soo horjeedaan kuwa kale waa jiraan shaariqa kamid tahayo Imaaraadka marka horta sidiisaba qaabku u sameeysan yahay khaldan asalaha marka la eego wadanka Imaaraadka Carabta gudihiisa waxa ku yaala wadan ay Cumaan leedahay ku yaala Cumaan gudaheedana waxa ku yaala dhul ay leedahay Imaaraadka Carabta marka waa wax marka horeba si kaada dibi oo kale la sameeyo weeye marka waxa la leeyahay burbur baa laga baqaya maxaa yeelay hadii Iiraan siday tahay u duqeyso wadankaasi uu ku deyn doonaa meelaha ugu horeeya la duqeynayna waxa kamid ah shidaalka iyo naftada iyo gaaska dabiiciga ah waxa kamid ah hadii waxa la duqeeyana Imaaraadka inta lagu taaganaanaya waa la kala qaxaya marka waxa la leeyahay waa Imaaraadku burbur iyo xaalad hubanti la'aan ah oo halis ah ayuu ku sugan yahay waxana tusaale ah waliba waxa la leeyahay wada socotaan Imaaraadku waa wadanka kaliya ah ee Islaam sheegta oo Israa'iil ciidamo iyo nidaamyo difaac u dirtay weeye marka ciidamo badan oo Israa'iiliyiin iyo khubaro badan oo hatta waxa la wariyaa in wadanku waa horeba Israa'iil la wareegtay way isla arki doonaa laakiin Imaaraadka Carabta waxa la leeyahay magaca kale ayaga wadankaasi mar dhow loo bixin doonaa nimankan boqorada marka durba waxay bilaabeen in lacagtii kala furtaano ninba akoomiyal ku shubto mid Hindiya mid Bangladesh mid China hadii tan Mareykanka la diido oo la xayiro si tan Hindiya u isticmaalaan tan China u isticmaalaan qaar kamid Afrikada inay wax geystaan waxa la leeyahay durba waxa bilaabanaysa yani qax isku diyaarinayaan baa la leeyahay marka Ilaahay waxaan ka rajaynayaa kuwa iyaga ka khayr badan ka macna badan inuu Ilaahay keeno laakiin ma fududa meeshaasi maxaa yeelay Israa'iil baa joogto degan iyaga Israa'iilna way isla dhashano waa ilma adeero marka
laakiin waxa la leeyahay yani waxaaba dhici kartaba xataa in ciidamada dagaalka gobolka bariga dhexeba in ay dhici karto in imaaraadka iyo Israa'iil iyo Mareykanka iyo xulafo badan ay yani toos u soo galaan oo Israa'iil qudheedaba ay soo degto imaaraadka carabta taas oo halis gelin karta Saudi Arabia iyo Bahrain Saudi Arabia iyo Qatar iyo wadamada kale ay Cumaan kamid tahay si wadamada carabta ee meesha joogo gacanta looga dhigo ama waxa laga yaabaa in imaaraadka carabta inta laga soo duulo Israa'iil iyo xulafadeeda inta soo duulaan in wadamada carabta ay ku soo duulaan marka waxyaabo badan ba marka muxalliliinta hadaladooda dhageysata aad u la yaabaysan marka waxa la leeyahay imaaraadka carabta ma wanaagsana sideedabana warbixin dhawaantan soo baxday ba waxay leedahay imaaraadka iyo Bahrain iyo Qatar iyo Kuwait mustaqbal ma balahanba maxay tahay marka horeba dal ma aha waa jasiirado waa meel yar oo kooban oo gumeystuhu sameeyay weeye marka in lagu kala darsado Yemen iyo Saudi Arabia ay ku kala darsadaan bay u badan tahay sida qaar kamid ah warbaahintu ay leeyihiin marka wayna soo la eega doonaa hadii alla ka dhigo laakiin wadamadan aan soo sheegnay xataa Pakistan ba kamid ah sida la leeyahay هذا ما لين إنا نسلاد هاي باكستان نوكلير بيلاد نوكلير هذا لاد هاي مهم معها شعبك مهمة شعبكم حي آمنسين شعبكم آمنسين عيدا كيو سياسيين تودن كباكستان هذا كعرمينا يعني عروش وشقيسياليين إن أي عدو كويهين قد هذا وضمن الإسلامكم مع إمران كان وجرى حبسك مدد أنت أصلك يسوق أنا الدم بلاهين يسوق ودن وقب عدك وقب الحزب يسوق ودن كوجوليستي marka waxa la leeyahay shacabka Pakistan oo 200 milyan oo qof ka badan ayaa iyagu laftirkooda careysan marka wana isla arki doona caalamul islaami oo dhanba jawaasiistu maanta ay maamurayaan laakiin waa la sii kala daran yahay dhinaca kale madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa goordhow waxa uu diiday guud ahaanba wuxuu yiri heshiis kasta oo aniga Iran aan galino Lebanon kuma jirto maba ku jirtaba waayo laakiin dhinaca kale إسرائيل وكجرتها يعني ما فهميسها يعني إسرائيل هذا مريكا هذا درتو إسرائيل وعرقته لكن أنا يقول حلفاء ذو مكة لا تجينه لكن أنا يقول حلفاء ذو كل ربيع مركو حلية هاي هالشيء كست أو أن إيران لقلين أو حبة جوجين أما الدجالة لبنان ما بقى قصة سبا يا كأنه وحن حبة جوجين تمركي لقلي يدورد ودك مريكا وأقولات إن لبنان حبة جوجين تكمل من نقطة إسرائيل حبة جوجين حبة جوجين جود بالله قاضي آوي مريكا كاد ديدي مروح يري واكو جرتي مرنو كما جري لكن هاد waxa leeyahay Netanyahu ba wuxuu ku yiri adar warba ku sheega adigi Iran hada heshiinaysan anigu afaarayga soo gelinina aniga Lebanon waa inaan qaataa waa inaan Suuriya qaataa waa inaan Lebanon qaataa Iraq haaf kamid waa inaan qaataa ilaa iyo Makka waa inaan qabsano hadii waxa dagaalkan macnihiisu muxuu yahay dagaalkan macnihiisu waa Israa'iil al-kubra wa Israa'iil shuwayn min bahri ila nahar يعني العراق iyo Suuriya iyo Lebanon iyo Falastiin iyo Qatar waxa iska daadiyay Saudi Arabia ilaa Makka laga soo gaaro marka hadaad Israa'iil al-kubra say ku suura galaysa Lebanon ku dar wadanka Urdun ku dar haaf Masar kamid ku dar Israa'iil al-udma muhiimada dagaalka loo huranayo wata marka taa hadii Lebanon laga joojiyo say ku suura galaysa waa maya dagaalkan sidiisaba waa dagaal diimeed waxba yaanaan lagu oran ترامي نتنياهو محيين سمسترج محيي بريغفير محيي مركا وحالا ليهاي لكن إيران مييلي دونتها لما شيء ولا غيابا إيران هرت وودن سمر بدن وإنا يتراد أوكي كما بجرتين عذاب عكرتي لكن هذا إيران عيدا علوس باجوغ لبنان هذا حماس وبس أورد لطور دمات إسرائيل وبعد كتي أولي بتجيبيسي سيدا عالم الإسلامي عالم كنا خبرة ميليتري بل حماس وحي نكتي دروس عصب أو دجال قرنية كو إلا باتنا دجال هذا وحلاقة برندونا حقوق الجبنة كارير فلسطين وحي نجان مركا سيدا سيدرات المركو حلاليه وحلاقة يا بينا يترادو أوكي كلا ساق بكو جرت ما بكو جرت لكن أي حوجسو صاحب بدأ قبلك كو عراق جوجي ودوين بدن بجر لوك هوستوس الله اسكو مريكر على أي تحل مركو حلاليه هاي وش أسوأ هو العلوس أو أدو علوس وير إن عكلا دجال توس يا نحن مريم ملتري ودن كمريكان كعيدن كبض يسودو كلاتو عيدن كإلى الله كعانك دولة ودن كيران سودو قرنيو تلفزيون كالجزيرة iskacaabintani weerarka waxa uu dhacay ka gadal markii ciidanka dawladda waddanka Mareykanka ay isku dayeen inay soo weeraraan gacanka Hormuz inkastoo ay faahfaahin dheeraad ah aan ka bixin laakiin haddana wakaalada wararka dawladda waddanka Iran warka u faafisay ee Faris la yiraahdo waxay leedahay iskacaabin culus ayaa dhacday waxaana lagu guuleystay mid kamid ah maraakiib Iran anti ku ah ama Iran arqaladeynayay oo waliba loo warinayo inuu ahaa maraakiib Iran markab Iran jaajusayay laakiin inta badan maraakiibta shidaalka qaada kamid ah waxa jirta maraakiib shidaal qaado شركة إسكاليين لكن شركة سو أي جواسيس كويهين شدارك دولة ودن كإيران يوحنوا عاسة واجرا أنت بدن قرع سجى جاج سنين بدر وإس قشاب وواح معروفة
marka dawladda wadanka Iran waxay leedahay dagaalka saa dhacay markabkii lagu dul dagaalamayna ciidanka ilaalada kacaanka wadanka Iran ayaa gacanta ku dhigay marka warkaas ayaa hadda soo dhac wixii ku soo kordha waan isla eegi doon hadii alla ka dhigo dawladda wadanka Turkiga madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayaa mar kale ka walwalaya afgambi military oo halis ku ah sida la leeyahay jiritaankiisa maxaa yeelay ilaahay ku 142 qof oo ka shaqeynayay howlgal jawaasiisnimaha iyo qaarkood afgambi ayaa gacanta lagu dhigay duqii hore Istanbul Imam Oglo ninka la yiraahdo rag taabacsan ayaa la leeyahay laakiin waxba yaabka leh dacwad oogaha ayaa 140 kaas qof ku soo oogay musuqmaasuq iyo sidoo kale to shirqool qaran yani qaranka ka dhana waxaana la leeyahay waxa suurtagal ah in lagu xukumo 2000 oo sano waligeey ma maqal 2000 oo sano yani yaa dhintay yaa nool weeye marka waxa la leeyahay 2000 oo sano ayaa laga walwalsan yahay ayaa lagu xukumaya sida qaar kamid ay leeyihiin hadii dambiyadaas lagu helo 2000 oo sano qofka cimrigiisa ma gaaraya marka wax yaab la weeye alay taxal wagaag hadii ay wax jiraan degdeg soo kordhay ahna maraan eegayna marka laakiin waxa ogaataa madaxweyne Erdogan waxa la leeyahay walwal culus ayuu qabaa oo wuxuu ka baqayaa in ay mar laba soo laabtaan 2016 wixii dhacay oo mar kale ah in afgambi uu Turkiga ka dhaco laakiin dawladda wadanka Turkiga dabcan shacabka Turkiga Erdogan waa nooleeyay xadima laakiin dhinaca kale waa isla culeysna iska jira dhinaca kale war degdeg oo hadda telefishinka Al Jazeera saaray sida ay warinayso wakaalada wararka Tasniim ciidanka dawladda wadanka Iran ayaa sheegay in la weeraray oo ay soo weerareen ciidanka badda wadanka Mareykanka waxaana ay sheegeen jawaab culus oo qaraar inay ku markaas ka bixin doonaan waxa kale oo ay leeyihiin hadii dawladda wadanka Mareykanka ay isku daydo inay soo weerarto ay ka soo weerartagto gacanka Khaliijka iyaduna waa ka jawaabi doona doomaha iyo maraakiibta isku dayaya inay arqaladayaan go'doonka dawladda wadanka Iran ay soo rogtayna waa ka qomameyn doonaan sida wakaalada wararka Tasniim ee dawladda wadanka Iran ay waranayso ra'iisul wasaaraha ninka nacamlayaha daba dhalifka dawladda maamulka Israa'iil u shaqeynaya ee la yiraahdo waa ninka Lebanon hadda ku magacaabane Nawaaf Islaam ayaa yiraahdo wuxuu leeyahay waxa uu sheegay in isaga iyo Suuriya xaalad culus ay dhex jirto oo Suuriya ay hadda wadanka Lebanon handadayso marka arin kale oo was ayuu isaguna sheegaya wararkani waxay ku soo kordhay waan isla eegi doon hadii alla ka dhigo Mareykanka iyo Iran waxa la leeyahay xiisadooda marba marka ka dambaysa ayay aad u culus tahay inkastoo qaar kamid ah warbaahintu ay leeyihiin waan la ka dooday ku soo kordhay laakiin ma sahlana sheekada sida qaar kamid ah muxalliliintu ay warinayaan aad ma santiina dib intaan ku kulmi doono nabadgelyo